anigu muuse waxaan bartay markii dagaalka dalka gudihiisa lasoo galay 88 waan bartay. marka isku jiid baan dee ka dagaalamaynay. waxa uu ahaa nin weyn oo aqoon-yahana oo sarkaal ah ayuu ahaa. wuxuu kaga duwanaa madaxda kale ee SNM. wuxuu ahaa sarkaalka keliya ee taariikhdu sheegayso inuu weligii xero jooga oo ku sheegaya dhammaan saraakiisha SNM wuu kaga duwanaa dhacdada. laga soo heli maayo taariikhda saraakiisha SNM mid guulo waaweyn soo hooyey, mid guulo dhexe keenay, midaan waxbaba tarin. halganka rabku isku raganimo maahayn. waxaa maanta beerka garaacaya nin waliba nin waliba taariikh buu leeyahay. rag halganka ku jiraan hal maalin lahayn saraakiila hal maalin oo leeyahay war maxaa hebel lagu xasuustaa. ya waan ku sheegaya rag baan lahayn. ragna maalmo badan bay leeyihin, ragna maalin iyo labay leeyihin. marka muuse maalmo badan buu leeyahay. horta waa marka horeysa oo lagu xasuusto hogaamiye ahaan. waxaan ka hadlaya waa hogaamiye maaha minji. waa madax iyo minjo. ninkani madaxdu ka mid ahaa. wuxuu leeyahay maalmo badan oo muuse lagu xasuusto oo qaarkood yaab iyo fajiciso leeyihiin go'aamadu qaatay. wuxuu kale oo kaga duwanaa baan kugu yidhi saraakiishii SNM isu gee kuwa maanta nool iyo kuwa dhintay. waxaa sarkaalka keliya ee weligii meel kale habeen ku dhixin ee xero joogaa, isagoo xil haya iyo isagoo aan hayn. isagoo xil haya iyo isagoo aan hayn. waxaa sarkaalka geedka la seexda askarta ee qamadida la cuna ee subaxii la soo toosa ayuu muuse ahaan jiray. saraakiishaasi halgamaysay waa bini'aadanoo duruufahoodaa badnaa. duruufahooda ayaa badnaa. xasbay lahayn caruuraa ku taxnaa. qaar baa marka xilka laga qaado meel haysta joog jira hawdkaa iyo reerkiisu isaga bedan jiro. qaar baa diri dhibay jijiga qaban jiray. qaar baan sooba dhaafi jirinba. waxaa saraakiil waaweyn SNM. qaar baan sooba dhaafi jirin dirigiyo halka oo ama maamul uu ku jiray oo aan iman jirin formaha dagaalka waayahana gudahana u warhayn, amaba meelihiisa iska joog jiro iskaga qayili jiray. qaarba foox shidan jiray oo la yaqaan oo maqaamyo iyo marfashiye iska lahaa oo suufiyiin noqday. oo halkudhigoodu noqday intaan dad cuni lahaa maan nebigayga cuno. muuse horta kaasuu ahaa marka hore saaxiib dhaqankiisu. wuxuu ahaa nin mutawaadica oon dadka iska hoyanaysiin. waa ninkaa askarta la seexanaya xerada ee aan kibir iyo qashaafad iyo aqoon labaad ahay iyo hebel baa tahay iyo xasan lukaal baa tahay. waa ninkaa qoyska weyn ka soo jeeda. qabkaasi nimaanu ku jirin buha. wuxuu ahaa nin halganku ka dhab yahay oo